Waxa wali socota baaritaanka la xiriira waryihii reer Sacuudiya Jamaal Khashoggi ee la waayay halka uu jaan iyo cirib dhigay, kaasoo la waayay wixii ka dambeeyay 2 bishii Oktoobar markii uu galay qunsuliyadda guud ee Sacuudigu ku lahaa magaalada Istanbul si uu uga helo warqado caddaynaya oo muujinaya inay kala tageen xaaskiisii hore. Kiiska ku saabsan Jamaal Khashoggi ayaa sii xoogaystay kadib markii dowladda Sacuudiga ay soo bandhigi weyday caddayn ku saabsan halkii uu ku dambeeyay, iyadoo sirdoonka Turkigu uu sheegayo in lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda maydkiisana lagu jarjaray halkaasi. Baaritaan qaatay 12 saacadood ayay booliiska dambi baarista ka sameeyeen gudaha qunsuliyadda iyo guriga uu deganaa qunsulka guud ee Sacuudiga u joogay Istanbul. Baarayaasha Turkiga ayaa la sheegayaa inay gacanta ku hayaan cod la sheegay inuu caddayn u yahay dilka Jamaal Khashoggi. Mareykanka ayaa ka codsaday dowladda waddanka Turkiga inay la wadaagto codkaasi sirta ah si uu yiraahdo caddaato dilka Jamaal Khashoggi. Kiiska dilka Jamaal oo aad u dhaliili jiray boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa waxa uu gudbiyay oo lugaha la galay dhaxal sugaha boqortooyada Mohammed bin Salman kadib markii gacan yarihiisa lagu arkay qunsuliyadda maalintii la waayay Jamaal. Wararka ayaa sheegaya in Maahir Cabdulcasiis Mutreeb uu ahaa isku xiraha dilkii qorshaysnaa ee Jamaal Khashoggi, waxa uuna Turkiga ku sugnaa 2 bishii Oktoobar maalintii la dilay, sida ay muujinayaan caddaymo iyo muuqaallo la helay. Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa wajahaysa cadaadis caalami ah oo ku aadan dilka wariyaha, waxaana xaaladda ka dhalatay arrintaasi ay gilgishay caalamka oo dhan, isla markaana dowladda Sacuudiga ayaa ku weysay oo ku lumisay dhaqaale balaayiin dollar iyo maalgashi ah iyo shirkado ay heshiisyo horey ula gashay.